Minneapolis, Minnesota waxa weeye magaaladay ugu badan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka. Magaaladan ayaa waxay tahay magaalo aad iyo aad ku cajabisa. Markii aad dhex martid magaaladan ayaa waxaad u malaysaa inaad dhex jabaaxaysid ama dhex socotid magaalooyinkii waddankeeni hooyo. meel walba aad tagtid ayaa waxaad ku arkaysaa waxyaabo badan oo ku soo xasuusiya waddankeeni Soomaaliya. marmarka qaarkoodna waxaaba shaki ka galaya inaad joogtid waddan qurbe. waxaad wadooyinka ku arkaysaa shacab badan oo Soomaaliyeed. meel walba aad tagtid ayaa waxaad ku arkaysaa dukaamo, makhaayado, masaajidyo ay leeyihiin shacab Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan ayaa waxay ku haystaan nolol aad uga sareysa noloshii ay ku noolaayeen wadamada Afrika. waxay ka heleen waddankan fursado aysanba ku haysan waddankeeni hooyo, shaqooyin iyo waxbarasho aad iyo aad u sareysa. Minneapolis oo lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ugu yaraan 120,000 oo shacab Soomaaliyeed ah ayaa bariyahan dambe waxaa ku soo batay falal aad u xun. falalkaas oo ka mid yihiin dil iyo dhac loo geystay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan. waqti 2 sano gudahood ah ayaa waxaa dhacday in magaaladan lagu dilay 9 qof oo Soomaali ah. hase ahaatee waxaa naxdin weyn ku sii noqotay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan markii la soo ogaaday in dilalkaasi ama dhacaasi ay ka dambeeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed. magaaladan waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noocyo badan isugu jira. qaar wax bay bartaan, qaarna way shaqaystaan, laakiin waxaa jira in yar oo aad ugu wareeray waddankan. danna mooday inay istaagaan darbiyada daroogadana san ka qaataan, iyagoo markay xaaladdu ku adkaato ku kaca falal aad u xun. dhalinyaradan ku wareeray waddankan ayaa waxay ku noqdeen wadna kurkur waalidiintooda iyo dhammaan dadka ku nool magaaladan. waxay ka buuxaan xabsiyada waddankan iyagoo qaarkood lagu xukumay waqtiyo aad u dheer. sanad walba ayaa waxaa dhacda inay iyagu isdilaan, sababtuna ay tahay ku biiritaanka ay ku biireen waxa loo yaqaano gangska. dhacdadii ugu naxdin badneed ee ku dhacda ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan ayaa waxay dhacday bilowgii sanadkan 2010 kadib markii hal habeen lagu dilay magaaladan 3 qof oo ay 2 Soomaali ahaayeen. raggaas la dilay ayaa waxay ahaayeen rag aan cidna wax u dhibin, raadsanayana nolol maalmoodkooda. We now know what police say happened inside a corner store that turned into a violent murder scene last week. Investigators are calling the shootings at the Seward Market in Minneapolis a robbery gone bad. Employee Osman Elmi, his cousin Mohammed Warfa, and a customer named Anwar Mohammed were all killed in the attack. ummadda Soomaaliyeed oo aad uga naxay dhacdadaas ayaa waxay aad uga sii naxeen markii la soo qabtay 2 nin oo Soomaali ah laguna eedeeyay inay geysteen dilalkaas. Mahdi Xasan Cali iyo Axmed Shira Cali ayaa booliiska magaalada Minneapolis soo qabteen 24 saacadood gudahood kuna eedeeyeen inay geysteen dilalkaas. raggan la soo qabtay ayaa sida kameeradaha ku xirnaa dukaankaas laga daawaday inay u dileen 3daas qof si naxariis daro ah. waxaan nasiib u yeelanay inaan wareysano milkiilaha dukaankaas ahna walaalka 2 ka mid ah raggii meeshaas lagu laayay. waxaan ka codsanay inuu noo faahfaahiyo siday habeenkaas wax u dhaceen. magacayga waxaa la yidhahdaa Faysal Xuseen Warfa. waxaan ahay mulkiilaha dukaankan Seward Market. dukaankan oo ah dukaankii sanadkan bilowgiisii January 6deedii lagu dilay wiilashii 3 ahaa oo 2 ka mid ah ahaayeen walaaladay. sida aad laga yaabo inaad meediyaha wax badan aad ka maqasheen bishii January sanadkan 6deedii saacadu markay ahayd 7:45 ayaa waxaa soo galay dukaanka 2 nin oo dhalinyaro ah oo xidhan maskaraati ah. 2 nin markii ay dukaanka soo galeen sida kaamirooyinka ka muuqatay nin ayaa hubaysnaa. ninkii hubaysnaa waxa uu sameeyay 2 wiil baa markaa ku jirtay dukaanka halka fadhiyeen. gabadh customer iyo nin kale oo caawinayeen waxay joogeen gadaal bay joogeen.
ninkii hubaysnaa wuxuu ku soo leexday labadii wiil ee halkan joogay wuxuuna ku qabtay qoriga pistoladii ayuu ku qabtay ninkii kalena gadaal buu maray iyadana wuxuu howlgareeyey oo joojiyey gabadhii customerka ahayd iyo ninkii kale wuxuu u sheegay inay derbiga ay gacmaha saaraan ayna dhaqaaqin ninkii kale wiilashii ayuu fadhiisiiyey halkan wax yar kadib markuu ayagii uu maxaan qorigii ku hayay waxaa soo galay qof customer ah isagoo isla daqiiqadiiba ninkii customerka ayuu ku dhuftay xabadda wax yar kadibna waxa uu isku dayay inuu baxo bixidii uu sii baxahayeyna wiilashii mid ka mid ayuu haddana xabadda kusii dhuftay wuu baxay haddana wuu soo noqday wuxuuna markaa dilay qofkii saddexaad kadibna way wada baxeen waxay aadeen gaadhigoodii labadaa wiil markii dambe waxay ahaayeen ee la soo qabtay niman Soomaali ah wayna xidhan yihiin waxay ka soo galeen albaabkan waxaynan wiilasha laba ka mid ah ay ku howlgareeyeen halkan cornerka ninkii kalena halkan u maray gadaal buu aaday gadaal bay joogeen labada qof kale ma aqaanin ka warqabeeyeen kale inay laba qof gadaal jirto wax yar kadib sidii aan horey idinku sheegay markii uu ku hayay bastolada uu ku hayay waxaa soo galay qof customer ah isla markiiba qofkii maxbadda ku dhuftay qofkii markuu dilayna wuu baxay bixiduu sii baxayeyna mid kaloo xabadda kusii dhuftay kadib ayaa soo galay ninkii kale halkan ayuu orod ku soo maray midkii aan qoriga wadanin wuxuuna aaday gadaal sharafkan gadaashiisa oo laba qof oo midna customer yahay midna uu caawinhay uu dukaanka ka caawinhay ay taagnaayeen wuxuu amray inay derbiga gacmaha saaraan iyo wajigaba wuxuuna baaray jeebkooda isagoo ka baarahaya teleefon si aynan booliska u wicin shalafkan hadda hortayda ah ay gabadhu ka qaadanaysay cafe bumbay ka qaadanaysay ninka kale odayga caawinayna gadaal buu dhinacaas ka yimid si uu ayada maartay u tuso meesha ay yeelaan kafeega marka halkan ay taagnaayeen isaguna meeshan ugu yimid wuxuuna derbigan ayuuna u saaray wajiga iyo gacmaha halkan uu ku baaray markii xabaduhu dhaceen uu ogaaday ninkii saaxiibka ahaa inuu dadkii laayayna orod ayuu mar labaad ku baxay wadada gadaal ugu noqday halkii uu ka soo galay markii hore kadibna labadii qof ee uu halkan ku hayay waxa ay ku carareen friskan gadaal ah friskan hadda hortayda ah wuxuu ku leeyahay albaab weyn buu gadaal ku leeyahay oo markii riddan hadda dhinaca laga soo galaa marka naftii bay la galeen friiskaas halkaas oo ay ka wacday gabadhu booliska booliskuna markii dambe ay ugu yimaadeen ay ka soo saareen labadii qof ee odaygii iyo gabadhii kale customerka ahayd marka friiskana waa kay ku carareen labada annagoo baaritaan ku sii jirna amaba isku dayeena inaan ogaano waxa ku kalifay labadaas dhalinyaro inay ku kacaan falan noocaas ah ayaan waxaan weydiinay Mr. Faisal sida uu arko arrinkaas dadka Soomaalida runtii dilka iyo dhaca labaduba waa wax u fudud oo moodo inay maxaan ku dhahay dhagahoodu in badan ay maqleen qof Soomaaliya wax dilay qof baa wax dhacay haddana sanooyinkan dambe ama ha noqoto gudihii ama ha noqoto halkan ay waddankan ay joogaanba intaba uu ku sii badanayaa falalka noocaasa waxaan isdhihi karaa waxaa ku kalifahaya ayaga oo maqlahaya dilkii iyo dhici oo agtooda aan wax badan aan ka ahayn iyo
dadkii maxaan ku dhahay ay halkan ugu yimaadeen ee madowga ahaa oo ayaga laftooda ay u tahayba xirfada ku shaqaystaan inay wax dilaan iyo inay wax dhacaan oo halkii uu qofku ama shaqo ka raadsan lahaa iyo intii uu maxaan ku dhahay si kale uu xooggiisa wax ugu doonan lahaa ay uga fududahay inuu qof ama baadho ama uu qori dukaan la galo oo uu maaragtay dad intuu dilo uu baadho marka waddadaasaan malaynayaa khaldan ee bictureka guud ee haystaan inay ku kallifayso inay raacaan raadkaas wax lagu farxa ma aha markii aad aragtid amaba maqashid dhowr iyo 10 jir Soomaaliyeed oo lagu xukumay 30 sano kadib markii uu galay dambi dil ama dhac ah ma dhici kartaa ama ma suurtagalba inay waalidiinta Soomaaliyeed ee yimid wadamadan qurbaha ka hortagi karaan inay caruurtoodu ku kacaan falalkaas oo kale sidee buu uga badbaadin karaa waalidka caruurtiisa si uusan u galin dambiyadaas waalidku maxay kaga hortagi karaan ilmahooda inuusan ka qayb qaadanin uusan ka mid noqonin falalkan noocan oo kale ah waxaan is dhihi karaa ilmuhu waxyaabo badan ayuu ku dhiiran karaa markuu waalidkii ka arko falalka noocan oo kale ah kow ilmuhu markii uu arko waalidkii oo waxaan uu samaynahayo aan ka joojinaynin waxay usii noqonaysaa dhiirigelin dheeraad ah ilmuhu markii uu arko qof dembi sameeyey hadda ka hor oo waalidkii garab socdeen heerkoodii ay looyar u qabanayaan xabsigii laga soo daynayo maxaan ku dhahayay la daba ordahayo waxaan is dhihi karaa ilmuhu weliba kusii dhiiranayaa maxaa ka joojin kara ilmaha waxaa ka joojin kara waddankan aynu joogno dhaqankiisa inta fiican aynu qaadanno waxaa ka mid ah waqti aan malinaya 2-3 sano ka hor qiyaaskii wiil yaroo teenager ah ayaa wuxuu mariyey gabadh Soomaaliyeed buu gaari mariyey cid qabatay ma jirin iyo cid markii arkay haysan midna booliska ayaa u soo dhiibay hooyadii isagoo laga raadinaya TV-ga hooyadii markay ogaatay inuu cunugeeda yahay ilmihii gaadhiga mariyey gabadhan aan waxba galabsanin ayadaa booliska wada tidhi cunugayga kale ka xeeya beddelkeeda innaga Soomaalidu kabta aynu samaynayno inaynu ilmihii garab istaagno oo aynu falki kala qayb qaadano tusaale yar laba wiil waxaynu soo sheegnay Soomaaliya ayaa hadda intay dukaankan soo galeen ee waxay dileen dad walaaladooda muslima oo waxba galabsanin ay si naxariis darro ah u dileen waxaan ognahay maanta labadii wiil familkoodii inay looyaro qaale mid walba loo shaqaaleeyay waxaan ognahay in ilaa iyo Kenya loo tagay in waraaqo dhalasho oo beenbeen ah loo soo sameeyo waxaan ognahay in maxkamaddii ay taagan yihiin maalin walba marka ilmihii marka uu intaas oo dhan arkahayo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii oo garab socda oo ku garab taagan isagoo oo intaas oo qof dilay oo og yihiin oo cad oo waxaysan yihiin markuu arkahayo way adag tahay ka kale inuu ka joogsado laakiin hadduu ogaan lahaa in waalidkii intay gacanta soo qabtaan inay dhiibayaan marka uu falkaas oo kala sameeyo qofna ma rabo inuu xabsi ku jiro qofna ma rabo in la dilo laakiin markuu is leeyahay xabsigana waa lagaa sii dayn maxaan ku dhahayay xabsigana waa lagaa sii daynayaa markuu is leeyahay looyar baa lagu qabanaya waa lagu garab istaagahayaa waxaa si dhib yar kuwa kalea ku dhiiranhaya waxaa kale oo kaga hortegi karaan ilmaha tahay falka uu ku jiro haddii haagu qori haysto oo bastoolad haysto oo guriga kuu jooga ma isweydiisa horta ilmaha wuxuu bastooladan u haystaa kolka horeba ma aha in ay dawladda u shaqaalaysay inuu sharciga ilaaliyo oo waddanka ilaalinaya ma aha wuxuu u haystaa dad adiga kula mid ah oo wiilkaaga oo kale gabadhaada oo kale ah inuu ama ku dilo ama ku dhaco sidaa darteed ilmahaaga marka aad ku aragto falka xun uu ku jiro oo kow ka tahay dadka uu la socda ee saaxiibadii ah ka qabo haddii uuna ku maqlaynin u sheeg dawladda u sheeg xidh adigu kabta aad looyar ku bixinaysa aad soo daynayso adigu gacantaada ku xidh kaxee oo masaafuri haddii ayna dawladdu wax kaa qabanin sidii aad ilmahaaga adigu akhlaaqdiisa iyo maxaan ku dhahaye mustaqbalkiisa aad u dhisi lahayd adigu ka shaqee laakiin ha kala qayb qaadanin
inaad ku taageerto oo keliyata markuu dad dilo inaad looyar u qabato markii la xidho inaad aad lacag beel ka dhigto ood aad soo dayso markii uu maxaan ku dhahay dulmi samaynayo inaad maxaan ku dhahay dambe basto oo tidhaahdo wiilkayga waa lagu been abuuranayaa hawsha muusa jirin wiilkaygu wuu iskala socdaa qoladane waxaan kuma jirin faamilka labada nin ee Soomaalida ah ee hawshan geystay mid ka mid ah oo aabihii la kulmay ayaa wuxuu ii sheegay in uu asagu wiilkiisa soo dhiibay asagu wiilkiisa markuu ogaaday hawshan inuu asagu go'aansaday wiilkiisa inuu soo dhiibo wuxuuna ii sheegay in uu kula taliyay inuu markhaati ka noqdo markhaati ku noqdo waa arrin fiican laakiin bedelkeeda loo yar haw qabanin bedelkeedina loo yar haw qabanin ha ku dhiirigelinin inuu hawshan sameeyey ay sax ahayd hawshan kale sameynaysa waa sax laakiin tan kalena cunugaagu ma uunan ahayn waanu sheegay waxa ku dhaw waxaad ogaataa wiilkaagu waxa uu dukaanka u yimid inuu ka adeegtana muusa u imanin qaraabo salaana muusa ahayn ninkan qoriga watana waxa uu la socday waxay ahayd inay wax dhacaan qorigan waxaa loo wataa markaad wax dhacayso hadday xaaladdu xumaato inaad isticmaasho marka waad og tahay qori markaad wadato ee aad meel gasho in hadday xaaladdu xumaato aad dadka dili ninkan inuu dad dilayana waad la socotay isku dembi baad tihiin sharciga islaamkana isku dembi baad ka tihiin ka waddankana isku dembi baad ka tihiin marka walaalayaalow ha kala qayb qaadanina carruurtiina xumaatada ay samaynayaan haddii aydan sida waddankan dadka aynu la joogno ee caddaanka ah markuu ilmahaagu uu wax sameeyo xun adugu aadan noqonin booliskii soo qabanaya raggii waa la qabtay laba wiil oo Soomaaliya la soo qabtay muddo yar gudahood baa lagu soo qabtay way xidhan yihiin resultigooduna wuxuu yahay mid ka mid ah 18 sano ayay dawladdu u diyaarisay in la xidho waxaana ninka markhaatiga noqon doona ku markhaati furahaya ninka kalena siday dawladdu ugu tala gashay waa cimriga ah ku furto waxay noqon doontaa resultigooduna cimriga ah ku furto noqon saasan rajaynayn haddii la yiraahdo walaalada Universal TV waad ku mahadsantihiin booqashada aad soo booqateen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa jaaniska aad siiseen iyo danayntan aad danaynayseen inaad macluumaad dheeri ah ka heshaan meeshii uu ka dhacay dhibka ee walaaladii dhibka loogu geystay inaad wax ka ogaataan aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaad marar kale soo booqataan aad baad mahadsantihiin